daawade waxaad ku soo dhawaateen janalka Masrax Official aad ku barateen casharada maadada chemistry-ga. Waxaanu ku soo celinaynaa qayb yar oo aan horay uga hadalnay naming of alkane. Magacaabista alkane-ka marka la magacaabayo sidoo kale IUPAC rules sharciyadiisa oo aan horay uga soo hadalnay. Waxaa jira example markii aan sharaxaynay oo weliba example waa C inuu ahaa aan u malaynayo inaanan arkin wax la yiraahdo cygenkan laakiin aan ku magacawnay kaarboonka labaad iyo kaarboonka shanaad oo aan dhahnay 2,5 dimethyl heptane aan qaadano silsilada ku dheer aan qaadanay. Laakiin markii cygenadu ay noqdaan saddex qaabkee loo magacaabaa. qaabkee loo magacaabo su'aal isweydiin mudan. haddaan inta kasoo tiriyo kaarboonka saddexaad ku dhigay haddaan inta kasoo tiriyo kaarboonka labaad ku dhigay waa tirinaa 1 2 3 4 5 6 7 hadda waxaan ogaanay silsilada ugu dheer ama parent chain inuu 7 yahay. inta waxa ku dhagan waa zygen inta waxa ku dhagan waa zygen. kaarboonka labaad mar waxa ku dhagan methyl marna kan afraad waxa ku dhagan methyl ka shanaadna marna waxa ku dhagan methyl. haddii cygenadu ay isku mid noqon waxaan isticmaali doonaa calaamadda la yiraahdo comma. okay waxaan leenahay kaarboonka labaad waa lagu dhagan yahay kaarboonka labaad waa lagu dhagan yahay hakad. haddana kaarboonka afraad waa lagu dhagan yahay waa zygen isku mid ah hakad ayaan leeyahay. haddana maxaan leeyahay kaarboonka shanaad waa lagu dhagan yahay weliba waxaa ku dhagan waxa la yiraahdo zygen. okay kaarboonka labaad afraad waa lagu dhagan shanaad waa lagu dhagan yaa ku dhagan methyl horta ku dhagan laakiin methyl meeqa jeer ku dhagan tahay waa 1 2 3 tusaale methyl inta mar zygen tahay mar kaarboonka afraad marna kaarboon 3 jeer zygen tahay. waxaan isticmaalaynaa cygenadu hadday isku mid noqdaan tusaale 3 hadii try aan isticmaalaa hadday 2 yihiin die aan isticmaalaa hadday 4 wixii tetra ayaan isticmaalaa. okay waxaan leeyahay try methyl methyl silsilada ugu dheer waa imisa. horta markaan waxaan intaan aan xalliyo waa maxay cygenadii aan xalliyay gadaal maxaan uga daraa parent chain waa maxay waa heptane parent chain waa maxay heptane parent chain waa maxay heptane. okay parent chain heptane hadduu yahay inta waxaa yaala ein ayaa taala einkan inta yaala inta waa single bond waxaan magacaabayaa waa maxay alkane. daawade waxaan kaa codsanaynaa haddii aad ugu xiistay casharada ka baxa janalka fadlan subscribe saaro kumbaleelkana furo si casharada ku xiga ay kugu soo dhacaan. su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay inta waxaa taala b waxaan rabnaa inaan xalino example-ka la yiraahdo b. ustaadu meeshaan waxaa taala xarfo kala duwan inta m ayaal kana b ayaal kana f ayaal alphabetical order horta say u kala horeeyaan. tusaale xarafka b ugu horeeya alphabetical order zygenka ah alphabetical order. okay horta waxaan ka tirinaa kaarboonada waxaan ka tirinaa 1 2 3 4 5 6 7
8 9 okay hadda waxaan tirinay baranjiga silsiladii ugu dheereed inta waxaa yaala waxa la yiraahdo cygen oo la yiraahdo ethyl wuxuu ka bilaabi doonaa e waa p a b c d e waxaa ku xigay waxa la yiraahdo ethyl maxaa ku xiga waxaa ku xigta waxa la yiraahdo f haye f maxaa ku xiga waxa la yiraahdo m ayaa ku xiga okay see uga shaqeynaynaa marka jawaabteedu ma cadday karnaa mise ma cadday karno waa su-aal isweydiin mudan yes jawaabtu waa cadday karnaa waxaan leenahay b ugu horeyda b kay ku dhigan tahay kaarboonka saddexaad 3 bromo 3 bromo 3 bromo kaarboonka saddexaad ku dhigan bromo e xarafka ethyl wuxuu ku dhigan yahay kaarboonka afraad waa kana intaan maxaa waaye iyadu intaan waa maxay waa ethyl tusaale 3 hydrogen 2 hydrogen waa 5 hydrogen kaarboonka waa 2 kaarboon yaa iskala sheekadan ethyl marka waxaan leenahay g10 ee leenahay 4 ethyl kaarboonka afraad waxaa ku dhigan ethyl haye kaarboonka saddexaadna maxaa ku dhigan waxa la yiraahdo fluoro ku dhigan waxa la yiraahdo fluoro ethyl kaarboon ku dhigan yahay kaarboonka labaad ay ku dhigan yahay halkan wuxuu ku dhigan yahay kaarboonka labaad ayuu ku dhigan yahay ayaa leenahay okay kaarboonka labaad silsilada ugu dheer waa maxay nonane hadda silsiladan aan magacownay waxaan u fiirinay alphabetical order xarfuhu say u kala horeeyaan b a ugu soo horeeya e a ku xiga f a ku xiga m a ku xigta marka ugu horeysa genka la magacaabaa kabacdina waxaa gadaal looga daraa waxa la yiraahdo parity genka oo parity genku waa 9 kaarboon waay parity genku waa maxay 9 kaarboon ayuu noqonayaa 9 kaarboon ayuu noqonayaa kan waxaan tusaa qaabka loo tirinayo adinka waxaan rabaa inaad xaafadaha ku samaysaan kan inta ka tiri inta ka soo tiri 3d 4d 5d 6d 7d intaan tusaale inta waxaa ku dhigan mithaal inta waxaa ku dhigan mithaal ku dhigan sax intaan waxaa u qaadataa waxa la yiraahdo inay tahay waxa la yiraahdo waxaa u qaadataa waxa la yiraahdo sec butyl u qaado sec butyl
adoo raacaya shuruucdii magacaabista waxaan kaa codsanayaa fadlan inaad su-aashan kasoo jawaabtiin in qaabka loo tirinayo waa ku tusay. fadlan sidoo kale kana waxaan niga codsanaya inaad soo magacowdiin. tusaale kan wuxuu ka bilowdaa xarafka E oo ka bilowdaa, kan wuxuu ka bilowdaa xarafka C, kan wuxuu ka bilowdaa xarafka M ayuu ka bilowdaa. so marka kaarboonada meesha laga tirinayana waa ku tusaa. meesha ugu dhow waxaa waaye waa 1 2 3 3 4 5 6 7 8 7 8. so marka waxaan kaa codsanaa daawade haddii casharadan janalka ka baxa Masrax Official aad u xistay, fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe-ta nagu saacidid aadna kusoo biirtid janalka Masrax Official oo subscribe-ta aad saaratid kumbaleelkana aad furatid asxaabtaadana aad la socodsid casharada maadada chemistry-ga inta ka baxa.